hooyo 30 sano wiilkeeda waysaneed wiilkii hooyadii oo inkiraa hooyadiina wiilkeeda u oynaysaa oo hamarna dagaalka xanuun habaaran ku kahaayay dareemka taawinaa ingiriiska oo maanta 14 sano jiray hordhumada lacagtiisa in astaantii ay hooyadiisu ku sheegtay inay isleeyihiin hasan faree raayan farteed hortaniyo qaxiyeenkooda ana waa yaabanahay war Soomaaliya wax ka socda ciyaar ma aha cabsi waay waxay ku xukuntay eegan dil toogasho ah eegan oo hore ay uga soo dacwoodeen dhibanayaal uu dhibaato u geystay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الله قلبك شخصياتك قلبك ونكسن انت سماء وصاحبك بقرطوية باحد وين سلام مذا بصوا بالله انا وذي دين سو مرسيي فضلا جنال كهدا كعصبتاي لايك شير كومنت سبسكرايب وحلقة كلية انكو قوليه بقرطوية انت مركا كقدو من اسحابتي اذا ما انتو وحان اذين هاي رياكشن بوقي سوتا لنعيب بدن تابانا هاي رياكشن كان كيورا كدوان yaab maalin walba social media waa ku arkay hadda muuqaalka ugu horeey muuqaaladeena wuxuu noqonaa hooyo 30 sano wiilkeeda waysaneed wiilkii hooyadii oo inkiraa hooyadiina wiilkeeda u oynaysaa bal hal mar ila daaw ها فرطنتن اي ku gohonye hasan faree raayan ما قسنو جيري markii kuugu dambeysay saqaal jarahay goorma ee taa unkii maridi oo hamarna dagaalka xanuun habaaran ku kahaayay dabcan hooyadani aad u la xanuunsaday laakiin hooyadan arinteeda markii baaris badan lagu sameeyay waxaaba la ogaaday hooyadani inay wiil caan ah dhashay wiilka oo la leeyahay AJ family waaba qoys dhan oo social media caan ka ah waxyaabaha la yaab kale waxay tahay hooyadani hadallada qaar ay ku hadlayso iyo hadallada wiilka horay u dhahay social media ayaa wax aad iskaga dhow ah bal hooyada hal mar ila daaw taa unkii maridi oo hamarna dagaalka xanuun habaaran ku kahaayay waxay leedahay xilligii daacuunka jiray waliba xilligii dagaaladii ayuu wiilkayga iga lumay asagana wuxuu leeyahay hal mar fiirib dareemka taawinaa ingiriiska oo maanta 14 sano jiray hordhumada lacagtiisa qof saaciday wuxuu ku leeyahay cunug yar oo lumay haddana qofkii saacideeyay weligiis ma iloowaay oo reer Puntland uu leeyahay ayaa garab weyn isoo siiyay hooyadani waxay leedahay asoo yar oo iga lumay taa waxaaba kaaga sii daranba hadalka hooyadani ay leedahay haddana mar labaad ila dhageyso tuntan ay ku gohonye hasan faree raayan waxay leedahay waxaa la dhahaa xasan farey fartuu ka go'an yahay isla markii asagaaba haddana afkiisa ka qiranaya farteed hortaniyo qaxiyeenkooda markii soo qaxay qabtiisaan dhacday ayagooda dabcan tuhun weena ku galay shaki weena ku galay haddana hadalka hooyadan ay dhahday ayaaba ka sii daranba bal hal mar waxay leedahay ila daaw ما قسنو جيري markii kuugu dambeysay saqaal jarahay markii ugu wara dambeysay hooyadani wiilkeeda uu ka lumay waxay tiri 9 jir u ahaa baaris lagu sameeyay shakhsiyaad asaga aad ugu dhow AJ family bal xogta heleen hal mar ila daaw ayaa waxay sheegaysaa ninkan inuu dhashay 1981 81 iyo 1991 markii la kala jaro waxaad arkaysaa marka waxa soo baxaya waa 9 sano xogta wiilkan Xuseen la leeyahay uu soo gudbiyay iyo hadalka hooyadan Soomaaliyeed markaad isbarbardhig ku samaysid wayba is leedahay waa 9 sano in 9 jir asoo ah wiilkeeda uu ka lumay saqaal jarahay waxa soo baxaya waa 9 sano marka ruuxa bini aadanka waa la tuhmi karaa waa laga shakin karaa had iyo jeer shaki markuu yimaado waxa wanaagsan inaad yaqiinta u dhawaatid waayo ruuxani leh wiilkeega iga dhumay waa hooyo Soomaaliyeed oo beerkeeda uu ka maqan yahay يعني هذا يجر روحي هوي رالي جليا وحي لم بتاعي أصله الدنيا دم فرحة جليا مركو هوي ده أنت لا حريرت ده هوي أديك أنا دي أنا هذا إسك صوبار أنا أنا دي أنا هذا إسك صوبارا سي أديك أن كو فرحة جليا لكن هوي أنا كو جيس أو مرة قار أتري هذا أنا ويل كذا مي والله ودرين أد وحنون بدن واي هوي ده أنا وهوي صدق سنة ويل كذا ويسند قلبي صدق سنة مروجيسنا أوياي wuxuu kaaga baahan inaa caawisid igu tara maamada gabar la taagan la fadhido gabadh walaashay ah inta markaan ka gudubno muuqaalkani marna waa ka nixina marna waa ka quslina ana waa yaabanahay war Soomaaliya wax ka socda ciyaar ma aha cabsi waay hal mar ila daaw bismillaahir rahmaanir rahiim maanta oo taariikhdu tahay 17kii bishii 10aad 2024
waxa ay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Sanaag ay fulinaysaa xukun dil ah kaas oo ay ku fulinayso ay bulshada dhibaato weyn u geystay aygan oo hore ay uga soo dacwoodeen dhibanayaal uu dhibaato u geystay muddana ay dacwadiisu ka furnayd maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Sanaag ugu dambeyntiina ay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah xukunka maxkamaddu markay aragtay asbaabtan kor ku xusan waxay ku xukuntay aygan dil toogasho ah qofkii ay dil toogasho ku xukumay qof bini aadam u daahan walaalayaalow dhanka diinta inay igaga fiicantiina laga yaabaa xayawaan bahaahina aanan garaad lahayn in la toogto ma banaan tahay hadduu dad cun noqdo ama bulshada uu dhibaateeyo bal qaybta commentiga aragtidiisna ma banaan tahay in la toogto mise ma banaano waxaani waa dembi bal hal mar nala wadaaga la saqiir suujinaya ka waran wax asoo dhowey bam wallahi yaabaan jiro warkii hore war soo dhaaf faarax wax dhacaya ma arki jirno xalima tuug waxaaba loo shaqo tagoyaaba tuuganimo qada tuugnimada inaa ka shaqaysanaa xamar ugu imaanay wiilkan gurigiisa ku soo degnay marka anagana alaabtaan iyo waxaana soo qaadanay dharkan iyo laba iskugu soconaa marka labana waa waxaynaysaa labana way qaadaysaa marka waakaasaad waxba ma ku suubanayna caadi ayagoo saan u joogan waxbaa ka gadanayna wixii kalena waa ka qaadanayna ilaan dadka waxa ay gadanayaan ay isleeyihiin mahana saasaa anagana u qaadayna walaalay xafiis ma ku leedahay muqdisho dad badan oo asxaabteyda inaan shaqaalaysiiya rabaaye oo shaafta eber igaga dhigay marka dadkaasa shaqaalaysiinay waxayba ku leedahayba annaga jiif iyo joog iyo luuqluuqba waxaa aragna waa siibnaa leh mana nala dareemo waa iskugu soconaa marka labana waa waxaynaysaa labana way qaadaysaa marka waakaasaad abo wax badanaa la xaliimooyinka romantic waa wax badanaa la xaliimooyinka waxay ku fiican yihiin hoolaha jaceylka iyo muxubada iyo kalgacalka iyo wanaagga hadda waa kalaay noocba nooc shaqada tuugnimada inaa ka shaqaysanaa xamar ugu imaanay waa kanaay xaliimo oo khamarji waxaaday taagantahay maxaliga bedela muuqaalka ugu dambeeyo muuqaalkani waa lamaane 24 saac ugu dambeysay social media iyagaa qabsaday waayo midba midka kale waa qiyaanay hal mar ila daawo ajaanibta caadi ma aha Babes, who is that? I saw somebody pass out. Who is that? I'm alone in this house. What do you mean you're alone in this house? Babe! hortiisa lagu shumay Hey! Hey! Jesus. Who is that? Babe, remember my cousin from my mother's father's side? waxay leedahay cousinkeyga waa kula qofka ay shumay cousintiisa shuminay weligaa ma aragtaday waa been You got this from your mother's father's side? Babe, you just have to You're cheating on me? Eh? Who's that? Oh my God. mobilkiyo jibi asagoo dacwo gabadha u haysta gadaashiisa laga soo baxay iyaa ka agbuuqoy allah adigana mii khiyaanaysi You got this from your mother's father's side? Babe, you just have to You're cheating on me? Eh? Who's that? Oh my God. abo sanadani faarax iyo xaliimo caadar isku dhacoya ka war wuxuu dhahay adigana duwa xariifka agtaada taagan anigana xaliimadana daangeysanaa labadeena baan wada jimcaysano asxaabtayda bye bye